Faa'iidooyinka caafimaad ee soonka. Soonka bisha Ramadaan waa mid ka mid ah tiirarka Islaamka ee shanta ah ee uu Alle muslimiinta ku farad yeelay in bishan Ramadaan ay soomaan. Inkastoo ay sidaa tahay, dad badan ayaa ka hela faa'iidooyin dhanka caafimaadka. Soonku wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad. Soonku wuxuu jirka ka saaraa sunta, wuxuuna isku dheelitiraa xaddiga macaanka ee ku jira dhiigga, wuxuuna furaa hamateedka, wuxuu yareeyaa dufinta jirka, wuxuuna kaloo leeyahay faa'iidooyin intaa ka badan. Haddii aan ku bilowno sida uu sunta dhiigga uga saaro, cuntooyinka aan qaadana qaarkood waxaa la socda maadooyin sun ah, ayadoo ayna ka mid yihiin bakteeriyada ilmo-qabatada. Suntaas waxay ku ururtaa uurku jirta, laakiin suntaas waxay gubataa markii uu qofka soomo. Waxay kaloo sunta ka saartaa qaybo kaloo ka mid ah jirka oo ay ka mid yihiin kilyaha iyo beerka, ayagoo iska soo saara sunta ku jirtay. Faa'iidada labaad, soonka waxa uu dhimaa xaddiga macaanka ee ku jira jirka, asagoo isku dheelitiraya maadooyinka glucose iyo insulinta. Soonku wuxuu furaa hamateedka oo qofka wuxuu u saamaxaa inuu cabo in ka badan sharabkii uu horey u cabi jiray, sidoo kalena uu cuno in ka badan khudradii uu horey u cuni jiray. Sidoo kale, soonku wuxuu yareeyaa dufinta jirka, wuxuu ka adkaadaa mushkiladda balwadaha la caadaystay. Waxay baarayaasha arrintan ku tacalluqay ogaadeen in soonka lagaga fogaado isticmaalka balwadaha kala duwan. Soonku wuxuu badiyaa tamarta uu jirka u baahan yahay, waxa uuna soonka xoojiyaa awoodda difaaca jirka. Ayadoo intaas faa'iidooyin caafimaad ay leedahay soonka, waxaa kaloo waajib ah in qofka uu weydiiyo dhakhtarkiisa in uu soomi karo, waana mararka uu ku sugan yahay xaaladaha qaarkood, sida in hooyada ay uur leedahay ama inay hooyadu ay jiqayso ama nuujinayso carruurteeda. Dad badan ayaa khaladaad galo maalmaha soonka. Khaladaadka cunada iyo cabitaanka waxaana ugu horeeya khaladka biyahaasoo la cabo labada waqti ee afurka iyo suxuurta. Khaladka suxuurta ayaa waxay tahay in qofka uu cabo biyo badan ayadoo la moodayo ama loo haysto in ay jidhka ilaalinayso haraadka xilliga maalintii. Midaasna waa fikrad khaldan. Biyaha badan waxay sababi karaan in uu beerku si adag u shaqeeyo, markaana ay sababto in haraad si degdeg ah ay ku qabato. Sidaa daraaddeed, talada loo soo jeedinayo ayaa waxay tahay inaad qaadato khudradda biyoleyda ah sida tufaaxa. Waxay kaa saamaxaysaa inay jirka siiso biyaha uu u baahan yahay xilliga la sooman yahay. Mid xigta ayaa ah in la cabo biyo qabooban xilliga afurka. Khubarada caafimaadka waxay sheegaan in biyo qabooban lagu afuro inay keeni karto dhibaato, maadaama aad ku jirtay haraad dheer. Biyahaas qabow wuxuu soo yareyn karaa wareegga dhiigga, jilcin karaana ama dibcin karana xubnaha jirka. Sidaa daraaddeed, khubarada caafimaadkana waxay kula talinayaan inaad cabto biyo aan qaboobanayn xilliga afurka. Dhanka cuntadana, iska ilaali cuntooyinka laga sameeyey burka sida baastada, bariiska iyo waxyaabaadka. Dhammaan cuntooyinka laga sameeyey burka, waayo waxaa ku badan carbohydrateska. Haddii aad cunto cuntooyinkaas carbohydrateska ay ku badan yihiin, waxaa ka dhalanaysa in qofka buurni ay ku timaado ama ay ku timaado cudurka sokorta ama macaanka. Cuntada milixda ama cusbada ay ku badan tahayna waa inaad iska dhowrtaa oo iska ilaalisaa, maadaama ay milixdu jirka yareynayso biyaha, midaasoo sababi karto inaad haraad badan la kulanto xilliga la sooman yahay. Allah inaga dhigo kuwa ka faa'iidaystay bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale, Allah naga aqbalo soonkeena. Intaan markaa kulmeen waxaan kaga tegayaa fii amaanillah.